waan in salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena bidaay aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono jilaaga caanka Baby Doll kaasoo maanta u dabaaldegi doono sanad guulada dhalashadiisa 54aad haddaba waxaan idin wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin laga diiwaan geliyay sidoo kale ee aflaamtiisa ugu sheekada wanaagsan balse intaan ugu wadagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad channelka soo biirto subscribe inoo saarto haddii muuqaalku uu ku cajab geliyo like inoo saar wixii ay qabto comment hoos inoogu raab sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal markaan ka hadalno jilaaga caanka Baby Doll waa mid kamid ah aktaradii aadka loo jeclaa sagaashameeyadii ninkan waxa uu soo caan baxay bartamii sagaashameeyadii ama sanadii 1995 filimkiisa ugu horeeyay waa filimka caanka ah Barsaad laakiin waxa xusid mudan in asigoo aad baayar inuu aflaamta ka soo muuqan jiray Baby Doll waxa uu dhashay maanta oo kale 27 January sanadii 1969 da'diisu maanta waxa weeyaan maanta ay u dabaaldegayaa sanad guulada dhalashadiisa 54aad saaxiibayaal jilaagan lagu magacaabo Baby Doll ama Baadal waxaad u taqaano jilaagan waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai ee gudaha dalka India markaan eegno jilaagan aabihii waxa lagu magacaabaa Dharmender ama Dalamender waxaad u taqaanaba halka hooyadii lagu magacaabo Barkash Kauri markaan eegno jilaagan waxa la dhashay jilaaga caanka ah Sunny Doll sidoo kale dadyoga la dhasheen ama walaalihii waxa lagu kala magacaabaa gabadha lagu ama atishad lagu magacaabo Aisha Doll oo kamid ahayd aktaradii soo caan baxay horaantii qarnigii 21aad jilaagan markaan eegno waqtiga uu fanka Hindiga ku soo biiray waxa uu fanka Hindiga ku soo biiray asigoo aad u da'ayar jilaagan ayana ka soo muuqda film lagu magacaabo Dharmender ka hogaamiye ka ah aabihiis ninka lagu magacaabo Dharmender filimkaas waxaa la daawaday sanadii 1977 markaan eegno jilaagan filimkiisa ugu horeeyay oo hogaamiye ka noqda ama actor buuxo waxa weeyaan Barsaad waxaan la daawaday sanadii 1995 waxa qayb kale ahayd atirshada hadda u dhaxda ama gabadha hadda u dhaxda ninka lagu magacaabo Akshay Kumar ee tawakalkana saaxiibayaal markaan eegno jilaagan iyo waxyaabaha uu xiiseeyay ama actorada uu Bollywoodka ka taageero jilaagan waxa uu aad u taageeraa walaalkiisa ka weyn ninka lagu magacaabo Sunny Doll ayuu taageero weyn u yahay dhanka waxyaabaha uu xiiseeyay dhanka sportiga markaan eegno waxa uu aad u xiiseeyaa ciyaaraha cricketka sidoo kale meelaha ama magaalooyinka uu jecel yahay inuu u dalxiiso waxa lagu sheegaa goobaha Singapore Dubai iyo sidoo kale caasimada dalkaasi Britain ee London saaxiibayaal markaan eegno jilaaga noloshiisa khaaska waxa la leeyahay jilaagan waxa xiriir jecel la soo wadaagay gabdho ay kamid yihiin Neelam Kathuri iyo sidoo kale atishadii sagaashameeyada caanka ah ee Pooja Bhatt waana gabadha ka weyn Alia Bhatt saaxiibayaal laakiin 30 May sanadii 1996 ayuu guursaday gabar lagu magacaabo Tanya iyadoo u dhashay caruur ama waxay u dhashay laba wiil kuwa lagu kala magacaabo Aryaman Doll iyo sidoo kale Dharam Doll wiilka ugu weyn oo hadda kan idin muuqda masawirka hadda idin muuqda weeyaan oo Baby Doll wiilkiisa weeyaan markaan eegno jilaagan iyo lacagaha uu haysana waxa la leeyahay jilaagan waxa uu haysta adduun lacageed gaaraya 20 milyan oo dollarka Mareykanka waana daraasad xilligaasi ama qiyaastan waxa la sameeyay sanadii 2017 saaxiibayaal markaan waxaan eegi doonaa Baby Doll iyo xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan eegi doonaa xaqiiqada ugu horeysa waxa la leeyahay jilaagan waxa uu kamid yahay aktarada isticmaala sigaarka yani aktarada sigaarka caba sidoo kale waxa uu aad u isticmaalaa qamriga ayuu sidoo kale cabaa sida shaac laga qaado ama sabarka hadda sida sabirada hadda idinkaga muuqda hortiina weeyaan markaan eegno saaxiibayaal xaqiiqooyin kale laga diiwaan galiyay waxa la leeyahay ka hor soo galitaankiisa fanka India markii uu soo qaangaaray intuusan fanka soo galin waxa uu ahaa nin DJ ama DJ muusigada daar ayuu ahaa laakiin nasiib xumo waxa la leeyahay in xirfadaasi ma aysan u noqon xirfad yani uu sii jeclaysto ama aad loogu jeclaysto kadib waxa uu go'aan ku gaaray inuu fanka Hindiga ku soo biiro ama uu soo galo asigoo soo galay horaantii 90 ama sanadii 1995 xaqiiqooyin kale jilaagan laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa la leeyahay waxa aad loo jeclaysta ama ay daawashayaasha aflaamta daawada sanadii 1998 waxay aad u jeclaysteen qaabjilinkii uu ku muujiyay filimkiisii caanka ahaa ee Soldier ka oo la daawaday sanadii 1998 waxaana ammaan ballaaran ku helay qaabkii uu ku jilay ama qaabjilinkiisa filimkii Soldier jilaagan lagu magacaabo Baby Doll xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay waxa kamid ah saaxiibayaal jilaagan waxa uu ahaa sida shaac laga qaaday dooqa koowaad ee filimkii ama directorka caanka Imtaaz Ali filimkiisii Jab We Meet ka oo 2007 la daawaday filimkaas waxa jileen ama loo dhiibay jilaaga caanka Shahid Kapoor iyo sidoo kale Kareena Kapoor saaxiibayaal sidoo kale xaqiiqooyin kale ugu dambeeyay aan jilaagan kala wadaagi doono waxa kamid ah saaxiibayaal jilaagan Baby Doll filimkiisa ugu horeeyay oo kaga soo muuqda qaab door xumaan ama ka balaadarnimo waa filimka lagu magacaabo Shaka Laka Boom Boom oo kamid ah aflaamta aadka loogu jeclaystay uu sameeyay jilaagan Baby Doll saaxiibayaal markaan waxaan eegi doonaa jilaagan iyo 10kiisa filim ee lagu jecel yahay markay timaado aflaamta uu sameeyay filimka ugu horeeyay aan ku bilaabi doonaa aflaamtiisa kuwa lagu jecel yahay waxa kamid ah filimkiisa ugu horeeyay ee Barsaad oo la daawaday sanadii 1995 filimkaas waxa qayb kale ahayd
atrishada caanka ah ee Tawakal Khanna. aflaamta kale aadka loo jeclaysto waxaa kamid ah filimkiisii Gupta ka oo la daawaday sanadii 1997. sidoo kale filimkaas waxaa kula jireen ama la jilayeen gabdho ay ka mid yihiin Manisha Koral iyo sidoo kale Kajal. walow filimkaasi Kajal lagu siiyay abaalmarinta atrishadii ugu horeysay ee door xumaana abaalmarinta Filmfare Award lagu siiyay waxayna ku qaadatay filimkeedii ama filimkani Gupta saaxiibayaal. aflaamta kale jilaagan lagu amaano waxaa kamid ah filimka caanka ah Soldier ka oo asagana la daawaday sanadii 1998. filimkaas waxaa qayb ka ahayd atrishada caanka ah Birita Zindh waxaana ka mid noqday aflaamta guulaha waaweyn gaaray sanadii 1998. sidoo kale waxa uu ahaa aflaamtii albamadooda ama heesahooda aad loo jeclaysay isla sanadkaasi saaxiibayaal. aflaamta kale jilaagan lagu amaano waxaa kamid ah filimka caanka ah Ajnabi ka oo hogaami ay ku xifaaltamay jilaaga caanka ah Akshay Kumar. sidoo kale filimkaas waxaa qayb ka ahayn gabadha lagu magacaabo Kareena Kapoor iyo sidoo kale Bibi Bazu. filimka kale waxa weeyaan ama aflaamta kale jilaagan lagu amaano filimka caanka ah Humraz ka oo la daawaday sanadii 2002 waxaana sidoo kale qayb kala ahaayeen atrishada caanka ah Amisha Patel iyo sidoo kale jilaaga caanka ah Akshay Khanna ama wiilka mastaan waxa uu taqaanaba. aflaamta kale jilaagan lagu amaano waxaa kamid ah filimka lagu magacaabo Abna waxaa qayb kala ahaayeen aabihiis Dalamandar iyo sidoo kale Sinidol saaxiibayaal. aflaamta kale jilaagan lagu amaano waxaa kamid ah filimka caanka ah ee lagu magacaabo Badal kaas oo la daawaday sanadii 2000 waxaana qayb kala ahayd atrishada caanka ah Rani Muqraji. aflaamta kale lagu amaano jilaagan waxaa kamid ah filimka caanka ah ee Biju ama Badal Dabaqarafka waxaad u taqaanaba kaas oo kamid ah asigana aflaamta aadka loo jeclaysay ee jilaagan uu sameeyay saaxiibayaal. filimka sagaalaad ee aflaamtiisa ugu sheekada wanaagsan waxaa weeyaan filimka lagu magacaabo Dillagi ka oo isla sameeyeen walaalkiis Kabeen Bibi Badal ninkan lagu magacaabo Bibi Dolan ee walaalkiis Kabeen Sanidol iyo sidoo kale atrishada caanka ah Ormila Matonga kaas oo kamid ah aflaamta jacaylka ay isla sameeyeen ama filimkii ugu horeeyay isla sameeyeen weeyaan Bibi Dol iyo sidoo kale Sanidol saaxiibayaal. filimka tobanaad ee aflaamtiisa aan kusoo khatimi doono kuwa ugu fiican ama ugu sheekada wanaagsan waxaa weeyaan filim lagu magacaabo Aashiq. filimkan Aashiq lagu magacaabo waxaa la waday atrishada caanka ah ee Karisma Kapoor waana mid kamid ah sidoo kale aflaamta jacaylka ee jilaagani aadka loogu amaanay walow filimkani uu noqdo filim ka guuldareystay ama filim guuldareystay weeyaan. filimkan Aashiq haddana sheekadiisa ayaa ah mid aad loo jeclaystay laguna amaanay jilaagan lagu magacaabo Bibi Dol saaxiibayaal ama Badal waxaad u taqaanaba. jilaagani waxuu kamid yahay aktaradii awoodda ku lahaa sagaashameeyadii markay timaado gudaha India khaasatan Bollywoodka. daba saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xogtii aan kala wadaaga ama xogtii xaqiiqooyinkii aan kala wadaaga jilaaga caanka ah ee Bibi Dol. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar janaalka dadka cusubta subscribe inoo saar sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada wixii ra'yi aad qabto commentiga hoos inoogu reeb waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.